حسابتنك isla xisaabtanka naftaada xisaabi. markii ugu horeysay maqalka magaciisa marka la joogo siyaasadda waxay ahayd 23 Febraayo 2017 subax sabti ah 12:59 daqiiqo saacadda Afrikada Bari xilligaas oo lagu soo xariiqay barta Twitterka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegay inuu u magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Birima Maarso ayuu hortagay golaha shacabka si uu u weydiisto codkiisa waxaana kalsoonida siiyay dhammaan xubnihii fadhiyay goobta oo ay tiradoodu ahayd 231 mudane wuxuu ballan qaaday wax ka qabashada arrimaha gurmadka abaaraha sugidda amniga cadaaladda kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dawlad wanaagga adeega bulshada dib u heshiisiinta xiriirka caalamiga ah iyo in uu wadanka gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 wuxuu la soo baxay siyaasad ku dhisan ismuujin propaganda been abuur oo ay u dheer tahay sumcad dilka siyaasiyiinta ka aragtida duwan isagoo u arkaya kuwa ku haysta kursigiisa wuxuu ahaa qorshe ay dejiyeen isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dawladnimada Soomaaliya ku kordhiyay kaliya adeegsiga gulwadayaal xiran shar wadaniyad kuwaas oo mushaar joogto ah ka qaata xafiisyada sare ee dalka wuxuu baraha bulshada u arkay meesha kaliya ee laga difaaci karo xukuumaddiisa wuxuu 3 sano iyo bar uu joogay ku baxay lacag lagu qiyaasay 36 milyan oo dollar wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee aan xisaab xir sameeynin ansixin miisaaniyadeed oo ay xigto ansixin miisaaniyadeed kale ayuu ahaa dhaqanka xukuumaddii uu horboodayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wuxuuna xisaab xir sameeyay 1 sano oo kaliya halka sano ee xukuumadda Kheyre ay xisaab xir keentay oo ahaa 2017 waxaa golaha shacabka loo gudbiyay Oktoobar 2018 isku turtuur iyo buuq badan kadib waxaa la ansixiyay November 2019 taas oo muujinaysa dib u dhac 3 sano ah kadib lama arag xisaab xir kale ansixintaas kadib waxaa dhacay in guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka la kala diray maalmo kadib markii uu sheegay guddiga in lacaga si qaldan loo isticmaalo ay jiraan oo ay ku jiraan xisaab xirka 2017 guddiga waxaa lagu eedeeyay in xukuumaddu ay ka shaqeyn laadahay miisaaniyadda 2018 oo ahayd 275 milyan miisaaniyadda 2019 oo gaaraysay 344 milyan iyo miisaaniyadda sanadka 2020 oo ahayd 459.5 milyan oo dollar intaba lagama hayo xisaab xirkooda taas oo ka dhigayso ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee aan xisaab xir sameeynin oo golaha shacabka hortagin lacagahaas marka la isku daro waxay gaaraysaa ilaa 1.1 bilyan oo dollar lama oga sida loo qarash gareeyay mana cadda cidda ay tahay in wax laga weydiiyo xilli dalkeena mar walba lagu sheego dalalka ugu musuqmaasuqa badan in uu kaalinta koowaad kaga jiro waxay ugu darneed markii 33 milyan iyo 700,000 oo dollar oo si sharci darro ah xukuumadda u isticmaashay ay ku soo dirtay xisaab xirkii miisaaniyadda 2017 lacagtaas oo ka kala timid wadamada Sacuudiga oo ah 30 milyan Turkiga oo ah 2 milyan iyo Imaaraadka Carabta oo bixiyay 1.7 milyan taas oo aan ku jirin miisaaniyaddii 2017 baarlamaankuna ansixiyay xukuumaddii Kheyre ayaa qarisay in lacagaha soo gashay waxaana la yaab noqotay in xukuumaddu sheegi weysay sababta iyo sida loo isticmaalay iyo waxa keenay in lacag deeq ah oo timid in dib looga saaro miisaaniyadda la ansixiyay 3 sano ka hor ballanqaadidiisii waxaa ka mid ahaa sugidda amniga taas oo maanta joogto meel ka xun meeshii uu shalay ugu yimid wuxuu qandaraas dhagax dhigis ah jidadka magaalada Muqdisho ku siiyay saaxiibkiisii wadaagii dhanka dhaqaalaha wasiirkii amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale wuxuu Muqdisho u qaybiyay 2 qaybood isagoo u sameeyay qad cagaaran waxaana dhacay qaraxyadii ugu waaweynaa xilligii talada uu hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyadoo dad badan ay isweydiiyeen ma amni ayaa loo diray mise dhagaxaan ila xogaal ah oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaqiijiyay in ay qorshe tahay mooshinka keenistii Kheyre aqbalaadiisii mooshinkaas oo u dhigay iscasilaad soo dhaweyntii xafiiska Farmaajo is sharaxaadii Kheyre iyo soo noqoshada in badan oo ka mid ah golihiisa wasiirada qorshahan ayaa lagu sheegay
in uu yahay mid lagu doonayo in lagu maran habaabiyo murashaxiinta mucaaradka ah si loogu wajaho murashax qalsoon iyo mid muuqda. wuxuuna Farmaajo soo jeediyey Kheyre in uu xilka banneeyo noqdana murashax sameeyana campaign muuqda isagoo isticmaalaya lacagta dawladda wax ku soo laaban doonana aysan jirin maadaama aysan xukuumaddiisu xisaab xir sameynin. ka sokow ilaa xogtan oo ah kuwa lagu kalsoon yahay haddana bal ila fiiri calaamadaha muujinaya qorshaha qarsoon ee murashax Xasan Cali Kheyre iyo madaxweyne Farmaajo. kow mooshinka oo aan ahayn mid hore loo soo gudbiyey oo la ogaa. labo Kheyre oo maqnaa sida ugu yaraan loogu fahmo in la gaaday ama xukuumaddu la dhabar jibiyey. saddex dhammaan gurihiisa wasiirada oo qayb ka ahaa gacantaaga maalinkaas marka laga reebo in yar oo fahamku ku yar yahay oo uu qayb ka yahay wasiirkii amniga. afar xafiiska madaxweynaha oo wax ka yar 20 daqiiqo ku soo taageeray kalsoonida kala noqoshada xukuumadda Kheyre, taas oo muujinayso in bayaanka la soo saaray uu sii diyaarsanaa maadaama wax ama kaaga aysan ku ahayn. shan Kheyre oo markii uu yimid dhan kale u rogay sheekada isagoona ka dhigay in sharciga la jabiyey balse uu iskaga banneeyo xafiiska iyo kursiga uu ku fadhiyey. lix in Kheyre dalbaday xil wareejinta lagana diiday oo uusan ka soo hadlin maadaama dalabkiisa uu ahaa. toddobo inay ololihiisa wadaan rag ka mid ah kuwii ay isugu soo dhawaayeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo ummadda ku qaldi jiray wadaniyada beenta ah. murashax madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo dardargelinaya qorshihiisa ay isla meel dhigeen isaga iyo madaxweynaha waqtiga uu ka sii dhamaanayo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kireystay 4 guri oo isku furan oo qiimo ahaan ku kireysan $80,000 bil walba, waxaana lagu qalabeeyay $630,000 oo ka timid qasnada dawladda. Cabdi Baaruud oo ka soo jeeda deegaanada waqooyiga caanna ku ah wadaniyada aan bishimaha dhaafsiisnayn aadna u jecel gudbinta fikirka farmaajisimka iyo u dhaganuglaanta Mahdi Guuleed ayaa ka mid ah ololaha Kheyre. waa dalaal u dhaxeeya Kheyre iyo cidda uu rabo in uu la macaamilo. waa xiriiryaha Kheyre iyo qasnada dawladda. wuxuu ka mid yahay Baaruud tiimkii ama kooxdii xafiiska Kheyre ee lunsaday lacagihii COVID-19 iyo mashruucii ayaxa lagu ciribtirayay. intii la xisaabin lahaa wuxuu helay bilad qarsoon. dhanka kale dadka sida dhow ula socda doorashada Soomaaliya ayaa dhankooda qaba in ujeedka ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo ka leeyahay Kheyre uu yahay in uu keeno codadka beeshiisa, waana arrin kale oo culays ku keeni karta Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo murashaxiinta kale. Kheyre oo intii xukunka uu joogay loo adeegsaday beeshiisa ayaa hadda u jilo in uu yahay nin lagu shaqaystay oo dhankiisa magac iyo maal intaba ka sameeyay. hadda ayuu diyaar u yahay in uu wax ka soo saaro rajiimka Farmaajo. waana riwaayad ay fahamsan yihiin murashaxiinta qaar. Xasan Cali Kheyre Geedi oo lagu xasuusto xisaab celin la'aan, sumcad dilka mas'uuliyiinta uu maanta shirqoolka kale u maleegayo, ismuujin ku salaysan hadal macaani iyo dhaga hadal, kala qaybintii Muqdisho oo gadaashiis nafistay, bahdilka qayb badan oo ka mid ah golihiisa wasiirada, fulin la'aanta ballamihii oo baarlamaanka ka hor ballan qaaday ayaa ugu dambeyn ku baxday gacanta 170 xildhibaan oo la dhexmarsiistay qorshe ay qayb ka ahaayeen guddoonka baarlamaanka Mursal iyo Muudey. intee la eg yihiin waxa uu ra'iisul wasaarihii hore Kheyre qaban karo haddii uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 2022 ilaa 2025? maxaase dhici doona haddii uu hirgalo qorshaha isaga iyo madaxweyne Farmaajo? Maxamuud Alxaaji.